idigay bidixi makamaranta madaxow majaha makamaranta maskaxiyo aqoon makamaranta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعلى وناكسن دلهانتين با بل والبعض نقد دعونا إنسان الدنيا الدافئة كل جد سنة كجوكتان كل سنة هذا برنامج جارة وأنا ما أنتو كهذا دونه معمول قبلات كهير شبله هي عقبتها كحيرا وحال لبدا إذا جرب كلا فردية ياسين على سو أو لنك مديجا هي قليف علم هوري أو لنك بدش إذا فردية وحنا ويدين دونا سؤال حساسي oo in badan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dunida daafiyada kala gedisan maankooda iyo maskaxdooda ka guuxaya ugu horeyn ku soo dhawaada barnaamijka gaarka ku dhownahay ama santiin ugu horeyn waxa jirtay in maalmahan uu shirar iyo waliba wada tashi uu ka socday gobolkan Western Cape gaar ahaan Cape Town kuna saabsanaa sida jaaliyada ka soo jeedo gobolka Hirshabelle maamul goboleedka Hirshabelle ay uga tashan lahaayeen aayahooda mustaqbal haddaba shirkaasi wada tashiga ee soconaya ugu horeyn qalif halku maraya maxaa samira dhal oo ka soo baxay. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Geelo soo dhaw adigay TV-gaada waa mar labaad mar saddexaad waa soo dhaweyneynaa la kulankaaga sidoo kale inta aragtideena ku aadaneed su'aasha gaabanoodna weydiisay way jirtay in muddaaba ay soo socdeen wada tashiyo iyo dhibaatooyinka hareeyay Hirshabelle state-ka la yiraahdo iyo sidii looga samato bixi lahaa marka ay jaaliyadu ay kulmaysayna ma ahayn jaaliyad Hirshabelle oo kulantay waxay ahaayeen jaaliyada Hiiraan iyo jaaliyada Shabeellada Dhexe oo common-koodana uu Hirshabelle isku yahay laakiin caqabado jira awgood wali u kala taagnaa fikirkii ahaa aragti kala duwanaanshaha ku salka ku hay cadaalad darrada sidaas daraadeed Soomaalidu waxay tiraahdaa taladiis bacdo soo tala kuma dhalato maadaama muddo dheer oo 7 sano walaahow tira badan lagu soo jiray haddana aysan u muuqato jugjug meesha ay joog haddana iska daba joognaahay waxaan xal ahayn waxa ka haboon inaan u gudubno marxalad aan xal moodi karno inay noqon karto haddii la yiraahdo marka aragtidii iyo kulamadeena meel fiican ay hadda marayaan waxaan hadda diiwaan gelinayna waxay tahay asalka dhibaatooyinka jira inaan raadino oo research ku sameeyno horta dhibaatooyinka jira 1 iyo 2 iyo 3 iyo waxa ay salka ku hayaan Soomaalidu waxay tiraahdaa cudurkaad oo ogaatay waa caafimaadkaada markiis alxamdulillah waxaan ku guuleysanay inaan ogaano cudurkeena kaasoo noqday cadaalad darro cadaalad darradii marka inaan daawo u helno waa mid hadda aan u taaganahay kulli aan warbixin hor u dhacan caawa rabno inaan ka soo jeedino anagoo wada jirno oo labadii gobol oo Hirshabelle haddii Ilaahay yiraahdo waa tahay qaliif cilmi hore aad baad u mahadsantahay sida qiimaha badan aad noogu faahfaahisay shirkaasi iyo waliba wada tashigaasi quruxda badan ee ka socda gobolkan Western Cape bal Yaasiin dhankiisa haddaan u weecdo Yaasiin maxaa fikir oo aad naga siin kartaa shirkaas socdo maadaama aad adigu labadii garab aad kala tihiin bal wixii fikir aad ku biirin karto bal soo dhaw geelow aad ugu mahadsantahay adiga iyo TV-gaaga waa sax saaxiibkay cilmi sida uu sheegay waxa jirtay kala duwanaansho u dhaxaysa maamulkan la isku yiraahdo Hirshabelle oo saaxiibkii xaqiisa ay taagnaayeen anaga Hiiraan iyo Shabeelle aan wada hadalno baan isku raacnay Hiiraan iyo Shabeelladii aan u fadhiisanay waxaan u sheegnay caqabadaha jiro inaysan annaga ahayn caqabada naga weyn ee haysata wadanahay Hirshabellada Dhexe iyo Hiiraan danahay oo aan isku nahay mar dambe isla garanay in Hirshabelle nahay inaan haysto cadaalad darradaasna aysan saaxiibkii xaqiisa kaliya aysan ka jirin aniga xataan nafs aanteena aan tabanayno haddaan nahay Hirshabellada Dhexe sida lagu heli karaa iyo way nooga dambeey doontaa laakiin cadaalad darradii aan isla ogaanay ilaan haddaad ogaato cudurka ku hayo
ood ogaatay waa adoo caafimaadka bartiisa helay cadaalad darrada maxay tahay saaxiibkii xoogaa waa ka afgobaadsada laakiin aniga in cadaalad darradii sidii taa aan u sheegan rabaa cadaalad darradan haysto waxay tahay annaga anigii asigaba 30 xildhibaan aan ku leenahay meesha markaa isku darsano waana dareemi kartaa meesha aan kasoo kala jeedno iyo sida muuqaalkeena uu kala yahay 70 kale asigana ma jirto anigana ma jirto sidee lagu heli lahay kabacdi aan u gudbi doonaa laakiin waxaan isla garanay in cadaalad darro ayna wada hayso cadaalad darradaasna halkeeda aan soo helnay aan rabno shacabkeena inaan la wadaagno oqaasheena shacabkeena iyo dhammaan bela aan kasoo kala jeednaba aniga iyo asigaba waa tahay yaasiin adoo aad u mahadsan cadaalad darrada aad tabanayso yaad isleedahay waa ay xallin kartaa oo aad la kaashantahay ilaa maadaama aad labadii gobol oo maanta isfaham ku raadsanaya cadaaladooda aad tihiin yaad isleedihiin waad keeni kartaan cadaaladda aad raadinaysaa geelo aad baad ugu mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba iyada naftirkeeda kama aan soo tegin oo aniga saaxiibkay si aad baan uga soo gorfeynay iyo jaaliyada inteeda kale laakiin labadeena ayaa noo soo xil saaray inaan TV-gaaga hor inaan imaado aan dibka aan qabno iyo xalkiisa san ku helayno ma ku sheegno cadaalad darrada aan tabanayno waxay tahay aniga 16 ayaan ku leeyahay markaan ahay abgaal aan ahay markaan intaan iska qaado shabeellada dhexe aan dhahayo waa anigu abgaal markii abgaal uu ku leeyahay 16 xubnood uu ku leeyahay golaha baarlamaanka Hirshabeelle u dhisan asagoo oo hiiraan ka soo jeedo xawaadle ahna uu ku leeyahay 16 ku leeyahay 14 uu ku leeyahay 14 uu ku leeyahay cadaalad darradaas way iska muuqataa waxaan isu sheegnay oo aan isla gorfeynay sida cadaalad darradii xalkeeda inuu yahay in horta aan ka xoreyno deegaanada la haysto cadawga shabaab oo haysto in xoreynta ku socoto in aan dhameystirno marka aan dhameystirno in shacabkii loo celiyo oo doorasho ama ku salaysan degmooyinka ku salaysanna ay helaan degmooyinka hataa nafarkooda ma aan ka kala tagin saaxiibkii kulli aan dhaafi doonaa taas degmooyinka sida ay ahayd asaa kulli si fiican u sheegi doono laakiin degmooyinka ku salaysan aan isla garanay in degmo kasto xildhibaanadeeda ay qaadato oo for example hadda 100 xildhibaan in shabeellada dhexe iyo hiiraan aan u kala qaadano konton u kala qaadano tabasho kale waxa jirtay saaxiibkii xaqiisa ka socotay oo dhahaya mataqaana in laba gobol maadaama 8 gobol oo Soomaaliya ay hiiraan wali ay ka taagan tahay in laba gobol ay haminayaan waa isu sheegnay lan shacabkooda qabo wixii la qabanay waa in laga dhawaajiyo waa muhiim waxaan isu sheegnay in iyada naftirkeeda lagu saleeyo tirakoobkaas oo dawladda dhexe iyo maamulka Hirshabeelle iyo hiiraan xubno ay soo dirsatay oo ayagana ka goonin naqa doona markee Hirshabeelle xubno ay ka socdaan maamulka dhexe markaan dhahay waxa labada dhinac xubno ay ku qanacsan yihiin waxa dhici karto maamul badan oo Hirshabeelle maanta ka dhisan aysan hiiraan naftirkeeda ay isku qanacsanayaan dhici karto si maamul loo wada qanac la helo waa in xubno hiiraan ka socda ay yimaadaan xubno shabeellada dhexe ka socdaan iyo dawladda dhexe oo monitor garaynaysa ama kor joogtaynaysa tirkoob ay sameeyaan tirkoobka ay sameeyaan hadii 2 milyan ama 3 milyan ay naqato Hirshabeelle ee shabeellada dhexe ay naqato hiiraan ay 6 milyan naqato inay u qalmaan walaalaheena ay u qalmaan inay laba gobol ay naqan karaan laakiin hadii 3 naqato in ay ku qancaan maamulkan aan wada dhisanay maamulkeeni aan riixano le maamulada kale uu ka haray Hirshabeelle u jeedna maanta oo waxaan isla qirsanahay in gobolada kale ama maamul goboleedyada kale aan annaga maanta u hooseyno sababta aan u hooseyno cadaalad darradaas ay tahay ile saas ayaan ku salaynay inta dhimana saaxiibkii ayaa ku dhameystiri doono waa gartay maadaama aad yaasiin uu ka dhawaajiyey in cadaaladda horta cadaaladdan khaliif in badan waxay ku salaysan tahay sida dadka marka hore siday iyagu isugu xirmi lahaayeen ma la dhihi karaa inta horta aan cadaalad raadinina horta adinka gacmihiina isqabsada oo dad isku xiran ilaa qofka sidiisaba markuu hal dhinac noqdo ayuu wax ka maqana raadsan karaa wixii u joogana oo horumarsan karaa sidee marka labada dhinac
iyagoon taa cadaalad u raadinta aanan la gaarin khaliif sidee lagu heli karaa idinkoo isku xiran labadii gobol oo iswato hal dhinaca geelo waa maasan tahay sida walaalka yaasiin uu sheegay cadaalad darradu waa midii ay kusoo bilaabatay Hirshabeelle oo kusoo dhisantay qallooc ay kusoo dhisantay cali cabdullaahi qallooci ugu tagay maxamed cabdi waarana qallooci ugu tagay haddaan teeramka dhammaadayna cali guudlaaw sheegtana qallooci ay ku jirtaa haddii hadda sidii hore wax lagu soo agaasimo wax lagu sameeyna haddana qallooci ku jiraysaa marka in qalloocaas lagu sii jiraahay bulshadii dan uma aha deegaankii dad uma aha dalkiina dad ummadina dan uma aha sida looga bixi karo marka waxay nala noqoto aragtideena aan ku soo jidayna marka koobaad isfiirsashadan ka imaaday labada gobol oo markasta la leeyahay xawaaldi iyo abgaal loo dhigaayo in ay tahay mid cadaalad darradii shaati lagu gulnaayo sababtoo markuu xawaaldan ku yeeshay 100 xildhibaan oo Hirshabeelle State-ka 100 xildhibaan markuu 14 xildhibaan ku yeeshay abgaalna 16 xildhibaan ku yeeshay su'aasha aan isweydiino koowaad waxay ahayd war qowmiyadda 3 jeer nagu soo 3 jibaaranto oo labada gobol nala degan yaa waay maxaase annaga markasta aan isku fiirsanaa oo danaheena iyo xalkeena aan u gaari lahayn maxaase ka gaari lahayn taas marka midda guud in isfiirsashada labada dhinaca oo abgaal iyo xawaalo dhali ahaan iyo dhaqan ahaan sida isku yihiin bal og yahay inaan marka koowaad horta meesha ka saarno oo laga saaro sideedaba taanta meeshaas waxa la yiraahdo isfiirsashada abgaal iyo xawaalo marka labaadna si cadaalad kaamil loo helo deegaanada cadawga uu haysto oo galbeedka Hiiraan ama galbeedka iyo koonfurta Shabeellada Dhexe cadawga ku harsan marka koowaad laga saaro marka labaad cadaalad darradu ma aha in state-kan Hirshabeelle 100 xildhibaan la inay abgaal iyo xawaale saddex ku yeeshaan cadaalad darradu ma aha taas kaligeed ma aha waxaan laga tilaabsan karin oo meesha yaalo in Hiiraan uu 8 gobol ee Soomaaliya ka haray asagana cadaalad u baahan yahay waxaan haddana laga tilaabsan karin in tuulooyin yaryar lala haminayo ama markasta la leeyahay tuulo heblo degma laga dhigay aan la ogeyn meel degmo u qalantay iyo meel aan u qalbin aan la kala ogeyn bal taas intii laga gaarayo oo tirkoob rasmi laga helayo oo diiwaangelin rasmi laga helayo horta waxaan tirada badan loo leeyahay meel kasta degma laga dhigay in loo kaadiyo oo asalkii loo celiyo horta labada gobol inta degmo ay ahaayeen xilligii dawladii ugu dambeysay oo 19 ka dhacday intay lahaayeen in horta marka koobaad aan la soo dhaafinin soo dadka beeraleyda waxay dhahaan sooyin habar loo celiyaa in horta lagu ekeeyo intii hore ahayd marka koobaad marka labaad in ama dawladda dhexe qayb ha ka timaado ama labada gobol dadkooda ha ka yimaadiino ama state-kaba tilmaan ha ka qaatee in la helo tirikoob rasmi ah oo labadan gobol laga sameeyo waa sax haddii tirikoob rasmi ah la helo in Hiiraan 2 gobol yahay inuusan 2 gobol ahayn xaqiiqada dhabta waa la heli doonaa marka koobaad marka labaad haddii degmooyinka la diiwaan geliyo oo registration loo sameeyo degmooyinka for example degmadii hadda 100 kun oo ruux ay joogto iyo degmada 140 kun oo ruux ay joogto haddii xildhibaanaha loo qaybiyo la yiraahdo isku xuquuq ma noqonayaan marka waxa la heli karaa xildhibaanada la qaybinayo degmooyinka loo qaybinayo sidii u kala mudan yihiin qaabka lagu soo dooranayo doorashada si loo gala waa system kale laakiin maanta waxaa taagan cid kasta inay ayadu tahay sida aragtideeda inay cadaalad u aragto marka waxaan rabnaa inay meesha ka baxdo qolo kasta ah ama cid kasta sida ayadu rabto inay cadaalad u aragto inay meesha ka baxdo xaqiiqda jirto oo rasmiga oo cadaaladda ay tahay oo ah maaragtay in muwaadinka uu xuquuq leeyahay ama uu xaq leeyahay ay banaanka imaado for example haddii hadda lagu yiraahdo adiga geela qolkaas 10 qof oo ku jirta $100 u qaybi markiiba maskaxdaada waxa ku soo dhacayso ina maadaama ay 10 qof yihiin 10 aad u siiso laakiin haddii uu ku yiraahdo nin ka mid ah war aniga wiilkan wiili aabiis aan reer quraan nahay odagan iyo 7dan wiilna asaga reeqan sax isku yihiin marka waxaad wada laba noogu dhig haddii ku yiraahdo inaan cadaalad meeshaas u helin waa muuqanaysaa waa wax waaqic ah marka si loo helo marka cid kasta ah inay tiraahdo dadka ugu mudan ama dadka ugu tirada badan ama dadka maaragtay cadaalad
darrada ay haysa anigaasi ay uga baxdo in qof kasta xuquuqdiisa muwaadinimo uu helo inay ku xiran tahay in tirikoob rasmiya iyo diiwaangelin rasmiya la helo si miisaan rasmiya loo helo madaxweyne xasan sheekh waxaan ka xiganaynay inaan madaxweynihii qaranka ahay gabadhayda iyo wiilkayga iyo walaalkay xuquuqdii muwaadinimo ay lahaayeen uma diidayso war annaga ma rabno xaq islaan mana rabno xaq walaal mana rabno xaq daris laakiin waxaan rabnaa qof kasta xuquuqda uu leeyahay inuu helo waxaana ka midaysanahay si wada jira inaan u wajahno inuu qof kasta xuquuqda iyo miisaankii uu lahaa uu helo ayadoon cidna lagu dulminayn cidna loogu darnaanaynin marka aragtideena halkaas ku wajahan tahay mana aha soo jeedin kaliya inaan geed dheer iyo geed gaabanba u fuulno in cadaalad rasmiya oo ku salaysan awood qaybsi oo ku salaysan deegaan oo ku salaysan qof kasta muwaadin inuu xuquuqdii xaq uu leeyahay uu helo yaan usoo kabakabsanay ugana midoognay haddii aan labadaas beelood nahan fikirkeena iyo taladan u midaynay inaan annagan cadaalad helna dadka nala degan ay cadaalad helaan haddii aan u wacdo dhanka iyo yaasiin sidee tirikoob qurux badan ama loo wada dhan yahay loogu samayn karaa Hirshabelle geli waad maasan tahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba sida aad doodan noogu soo yeertay annagana waxaan u xil saarnay ma ahan wax hadda kaliya aan maanta kaliya doodan ay ku ka doonto ma ahan biri ku ka doonto oo wax aan rabno in ay gaaraan degmo gobol tuulo ilaa ay guri inay gaartaan rabno aniga iyo saaxiibkay beela aan ka soo jeedno kaliya ma ahan waxa aan rabno inay cadaalad ay helaan waxaan rabno waxay tahay cid walbo ee degan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe inay cadaalad ay hesho qaab alaal qaabkii cadaalad ku heleedna waxay tahay cid kastaba inay codkeeda iyada ay dhiibato haddii codkeeda dhiibato qofkay doonaysa ay doorato in cadaalad la wada helo aaminsanaan doona waxa meesha ka bixi doonto heer qunsax heer qansax iyo heer qurac ayaa qadsana ka bixi doonto ilaan cod ayaa meesha imaaday in shacabkii deganaa meesha dantiisana cidda codka siiyo biri u eedi kariya laakiin haddii la yiraahdo waraa idinka heer qunsax iyo heer quracatiina labadan qabsada dadkan kala idinka daran dadkina aysan meesha aysan badeganayn waa tan maanta na haysato waxaan uga bixi karnaa in tirikoob rasmi ah la helo saaxiibkeena uu ku qanci doona anigana aan ku qanci doona haddii annaga dadkeena degan Shabeellada Dhexe tirikoobkooda uu noqdo 3 milyan uu noqdo asigana uu 6 milyan noqdo labadii gobol uu sheegayay inay tahay ayaan u qarsanaa doonaa haddii laakiin uu 3 milyan noqdo anigana 3 aan ahay waa saaxiibkay waxaan isku raacnay inaan dadkeena u sheegno aan cid walba oo xaq darro wadana waxaad wada xaq ma aan helin 3 milyan tahay ninkan waa 3 milyan labada gobol oo la sheegay oo Hirshabelle ahayd aan sida u wada qaybsano sidan aan ku socono waa tahay yaasiin aad baad u mahadsan tahay waxaan ognahay in la joogo waqtigii Hirshabelle ay doorashadii u diyaar garoobaysay idinkana waxaad ka hadlaysaan cabasho iyo cadaalad u raadin sidee la isku waafajin karaa inay doorashadii dhacdo cadaaladana la helo cadaaladda iyo doorashada kee jeceshihiin ama aad isleedihiin waa la horumarin karaa ama midkee la dibi dhigi karaa haddii aad tiraahdo maanta doorashada ha la qabto ma isleedihiin oo doorashada la qabto in cadaaladda gadaal laga fulin karo mase waxaad leedihiin doorashada dib ha loo dhigo cadaaladda ha la soo hormariyo si gobol walba asoo qanacsan biri wixii u soo baxo uu raalli ugu noqdo aan ku horeeyo Khaliif Cilmi Hore geel waa maasan tahay waa sax doorasho hadda jirto horta kulamadan iyo aragti isweerdaarsigan iyo turxaan bixintan salka ku mahayn ujeedkadana mahayn doorashada iyo barnaamijka hadda gabagabada oo ka socda Hirshabelle state-ka waxba shaqo kuma lahayn aragtideena iyo fikirkeena iyo taladeena ku aadan in dhibaatooyinka iyo cadaalad darrada in xal loo helana kuma salaysno doorashada hadda ka socoto Hirshabelle waa mid sanad qaadan karto waa mid haday rabto 2 sano qaadan karto haddaba 7 sano walaa hawl lagu soo jiray haday rabto 3 sano ha qaadatee waxaan rabnaa waxay tahay inaan cadaaladaas annaga aan helno haddii aan u soo laabto midaan doorashada
dabcan dadka meesha jooga ayaga naftooda waa dad ay aqligoodii maskaxdoodii fikirkooda u shaqeynaa wixii la soo maray og waxa hadda lagu jirana og hadday rabaan marka jugjug meeshaadii joogna sidii ay shalay iyo darad iyo markii kasii horeysay ay ahayd iska sii ahaan doontaa haddii aragti ka duwan oo dadkii looga cadaalad falaayo oo barnaamijkaas lagu wajahayo in sinaan la helana ay u soo jeestaan oo aan diyaar u nahay annagoo bulshadii labada gobol hormuud ka ah inaan la taabagelina haddii la yiraahdo sidaas darteed marka waxaan leenahay marka ayagoo ha ku darsadaan talada in ciyaarta waxaa la yiri dadka ciyaaraya korjoogtada waxay aad ugu muuqataa qaladaadka iyo waxyaabaha ciyaarta dhexdeeda ka socda dadka korjoogtada marka maadaama dadkii deegaankii iyo bulshadii qaybeedii kala duwanaa iyo aragtidoodii aan si toos ugu dhex jirno aragtideena saliimka waxay na siinaysaa inaan markasta lagu soo noqonin meeshii shalay marxalad ka gedisantaas loo gudbo hadda kahor waxaa la yidhi hebelow adduunka gadooma marka asagan ratiga ka garbabeela leh marka wuxuu qabay in wax kasta dhinac kale loo gudbinaa haddii adduunka gadoomo waa ii samaan leedo ratiga iga garbabeelaan caloosha ka raran lahaa yiri saaxiibka yaasiin hadda nimankan ay caraysaan ama sida hadda ay ku yimideen ay ku cishtaan aniga waa ii roon tahay oo maanta hadda madaxweyne ku-xigeen waxaa ah dabageed waxaanan ognahay sida reality-ga marka laga hadlo maanta meeshuu dabageed jooga haddii cid kale ay joogi laheeday ama dad kalentoon ognahay ay joogi lahaayeen dhibaato iyo caqabada aan dadkeena ka dhex dhicin weligooda ka dhex dhici lahaa marka dabageed wuxuu tolka agteena ka dhashay uga ammaanan yahay weli in laba qof aysan dartiisa asaga isku dharbaaxin system kasta ha ku jiro waa suurtagal wuxuu asaga moogyahay systemka dhexdiisa inay ka dhacaan laakiin wuxuu ogaal u yahay waxaa lagu ammaanay wuxuu ogaal u yahay dabageed uu og yahay inaysan laba qof intay iska hor imaaday aysan isku dharbaaxin marka hadda inuu mid asaga meesha ka tago dadka qaar intay yimaadeen dhibaato kale naga dhex dhaxdo waxaa noo sii dhaanto intii xal laga helayo inuu asaga noo sii joogo maxaa yeelay waa naqaanaa waxa ka suurtagelay waxaan ka suuragelay marka kolley saaxiibkay ma garan kara dhankiisa waxa jiro laakiin haddii aan bal huraynin ama sanad ha ku darsada ama 2 sano ha ku darsadaan intay xalka nala qaadana ama programkan bilowga ah dhamaystirkiisa aan ka wada gaarayna iyadoo dadkii bulshada ay u dhantahay dib kuma qabna annaga hadda inuu dabageed noo sii joogo yaasiin waxaa jirta inuu saaxiibka ka dhawaajiyey dowlad goboleedka Hirshabelle intay rabaan ba ku darsadaane wax uun muuqda oo dadka ay ku qancaan oo dadka maanta tabashada iyo cabashada qabo si ay u helaan waxaan ku raadayay daawo dhamaystiran oo helaan intay doonaan ha ku darsadaan ayuu leeyahay saaxiibka bal fikirka adigu maxaad ka qabtaa wargelo warta aniga saaxiibkay fikirkiisa kama ag dheeri laakiin waxaan aaminsanahay Hirshabelle inaan horta hadda iyo bilaw ay tahay zero ay tahay Hirshabelle maanta ay tahay وجه كستو عدالة لو هلا يعني إن لو دول قطع لو غصب يعني تضوى سنة أياد سؤال سنتاي الشباب واحد السنة ملها ودريم كرتا حالة ده كشوت مركا أنا مهمة ده إيتاي أو صاحبك أنا شوف فكر كنا بعتاي يشوف الفلتان كلا بدل نعم حوالي يبقى لا أبقى لو قبو حوالي قبو إنه مش سكب حضرت سيدي يقول بحلهاتنا أنا أستغنى الشعب كان عنو شغنى سيدي يقول بحلهات بعتاي إن له registration مدرسن إن له عدي لستورنا يو دقم له عشو دقم عد والبابا يكون عدو هدي دقم كسو جدو يدي طول كسو جدو عد والبابا وحي كه شرط إن يكون عدا مش يكون عدا مسرح حالتي ما هذا هدي مسرح حالتي ما هذا وحي كه شو يكون على سنوات نين أب طول الدقنين أو هيرشبelle أمان تسدح اللي بانك له أنا أقنع دبضن ترى بدن marka dad badan oo loo haysto inay dulman yihiin ayaa dulmanayaan leh marka aniga saaxiibkay waxaan ka midaysanahay maanta oo aan beela aan ka soo jeedino aan u sheegayna inaan labada xawaadle iyo abgaalba ay dulmanayaan yihiin dulmigana waxay uga bixi karaan in registration la helo asaga oo ku qancana aan ku qanco aad baad u mahadsantiin waan idinkaga mahad celinayaa sida qiimaha badan aad iga aqbasheen wicitaankii aan idinku ifaad gareeyay برنامج قرص بدن
waxaan su'aal hal daqiiqo ah aan siinayaa yaasiin fursaddan adigoo ka faa'iidaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd qabiilka aad ka soo jeedo gaar ahaan andhaho shabeellada dhexe maxaa baaq ah oo aad siin lahayd oo tala ah aniga qabiilka aan ka soo jeedo ama gobolka aan ka soo jeedo waxaan sii lahaa in midnimada laga shaqeeyo in mar kastaba waxaan aaminsanahay dad cadaalad oo had iyo jeer jecel inay yihiin laakiin cadaaladda ay hadda ku dadaalaan in ay doorasho tuulo degmo ilaa iyo gobol ah ay wax ka diyaariyaan annagana aan rabno aan u soo jeedinayno inay mataqaanaa ka faa'iidaystaan in fikirka saliimka mar kastaba anaga gogolaan ahayna mar kastaba dadka tabanayo walalaha tabanayo oo sida heri hiiraan oo kale gogol ay u fidiyaan tabashada ay qabaan haddii ay sax tahay iyo haddii ay qalad tahay ay la fadhiistaan ay tusiyaan walaalkay waxaa tabanayso haddii ay jiraan ayna xaggeena jirin aan aaminsanahay inayna jirin nama jiraan ay tusiyaan in haddii ayna jiraan naftarkeeda ay ugu garaabaan walaalkay ama herihiran sida ay qabaan badanaa waxay tahay in laba gobol ay maanta ay u qalmaan labada gobol ay u qalmaan naftarkooda inaan lagu diidin oo la fiiriyo horta oo registration loo dhaabal walaalayaal tabtatiin in registration loo fiiriyo tirokoob la sameeyo tirokoobka la sameeyey haddii ay sax noqdaan oo sida sheeganaya inteen loo tixgeliyo haddii ay sax noqonne ay yidhahdo walaalkayo marka waxaad ka tabanaysay waa mid aniga tabanaya aheeda bal isoo garab istaag sidaasna aan garbaha isqabsano yaasiin waad mahadsan tahay sida quruxda badan aad tala jeedinta aad ugu samaysay dadka aad ka soo jeedo waxaan filayaa inay kaa aqbali doonaan haddaan usoo jeesto dhankaaga khaliif cilmi hore khaliif haddii hal su'aal aan kuu koobo oon kuu soo gaabsho adoo soo gaabinaya hal daqiiqana kusoo koobayo waxaad ka dhawaajiseen in aad tihiin guddi isku xilqaamay sidii ay nabadda ay u gaarsiin lahaayeen iyo wada tashiga ka socda gobolkani fikirkaas aad inta ku haysaan ma wuxuu ku ekaan doonaa gobolkan oo keliya mase waxaa idiin go'an in aad fikirkaa aad jeedinaysaan aad daba raacdaan oo aad xal dhammaystiran ilaa laga gaaro aad garbaha aad ka haysaan geelo waa baadsan tahay aragtida iyo fikirka iyo talada halkan taallo halkan bes ma taallo ilaa iyo deegaanadii aan ka nimid oo labada gobole waa taallaa 24 saac qadka la isugu jira laga wada hadlaa sidii xal waara loo gaari lahaa haddii dowladda dhexe tahay iyo haddii systemka hirshabeelle tahay iyo haddii dadka labada dhinacoo tabashada qaba ay tahay dhammaantood waxaan ku wada midaysannahay in aan wixii lasoo maray aan wax ka baranno wax bedelkeeda keeni karo oo midnimo iyo wadajir iyo nolol u horseedi kara bulshadan labada gobol deganna aan suurtagelin hadduu ilaahay yidhaah marka wax inta ku eg ma noqon doonaan taas waa midda koowaad midda labaad oo ah maxaa fariin oo halkan ka reebay fariinta koowaad waxay noqon doontaa dhammaan bulshada labada gobol ku dhaqan ama stateka gaar ahaan kuwa reer hiiraan inay midnimada iyo wadajirka ka shaqeeyaan marka koowaad marka labaadna xoogga la saaro deegaanada sida boq iyo ceel cali iyo shaw ilaa iyo xadka bay iyo boqol uu leeyahay gobolka in cadawga laga bixiyo waxaan dhihi karnaa dhanka bariga waa la xawilaa la yidhi cadawga halkaas ku jiro gobolada naga xageen kusii xawilnay dhanka galbeedkan in la xawilo sidii kuwii bariga loo xawilay wixii intaas ka dambeeyna aan usoo jeesano inaan annaga iyo reer shabeellada dhexe aan xisaabtanno oon miisa isugu imaano xisaabtankeenaasoo ka bilaabanaya diiwaangelin registration waxaa sal noqon doonto xaqiiqada runta ah markii la helo waxaan dhihi karnaa meel ceel cali oo 10 loo dhigay dhigeed aan dhamayn oo qurac joomo 10 loo dhigay dhigeed aan dhamayn oo beergido 10 loo dhigay dhigeed aan dhamayn in maanta la yiraahdo waa degmooyin cadaalad darrada ka mid ah marka inaan asal u wada noqono intii labada gobol ahaayeen marka hore loo celiyo tirikoobkaas wixii ka soo baxo intii degmo u qalantan ay degmo qaadato gobolka hiiraan hadduu 3 gobol u qalmana 3 gobol u noqdo hadduu 2 gobol u qalmana 2 gobol u noqdo xitaa haddii ay dhacdo in 75 uu noqdo meesha halka uu ka noqdo shabeellada dhexe 50 hadduu 75 noqdo in inteeda waxa la isku daalacnaasilo 3 gobol oo labadan gobol ka dhax timid ay noqoto stateka hirshabeelle markaa 3 gobol noqdo
marka waxaas oo dhan laakiin asalkooda waxa noqon doono aan isleenahay waa in cadaaladda loo noqdo cadaaladana kama horeyso in la ogaado tirakoobka registrationka rasmiga ah si qof kasta miisaankiisa uu ogaado oo isgarab orodka iyo aniga ah iyo aniga eri iyo annaga ay yeelnayda ay meesha ka baxdo marka insha Allah cadaaladda waa dhowdahay aan dulqaad yar sameynaan dheelaa insha Allah Abdullahi ira midnimadii wada jirkan ha laga shaqeeyo cadawgan ha la isu kaashado insha Allah waa tahay Khaliif aad baan u mahadsan tahay sida quruxda badan aad inoogu faahfaahisay guud ahaan barnaamijkii aan kaga hadlaynay arrimaha gaarka ah ee ku saabsan maamul goboleedka Hirshabelle intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa waa Yaasiin iyo Khaliif iyo Geela Axmed Siyaad oo idinkaga tagaya tan iyo kulantideena dambe barnaamijka xiga sida ay nabadgelyo ismakaabsado midigta isqabsada kala maarmi maysa Soomaaliyey midigta isqabsada